tababarkan oo ku saabsan la socodka hirgelinta heshiisyada caalamiga ah ee ilaalinta deegaanka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday hay'adaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale oo qaybsanayaasha dowlad goboleedyada dalka ee deegaanka. muddada 2 maalmood ah ee uu socon doono tababarku ayaa waxaa lagu garfayn doonaa sidii loola socon lahaa fulinta iyo ilaalinta heshiisyada caalamiga ah iyo sidii looga hortagi lahaa waxyaabaha keeni kara nabadguurka deegaanka. agaasimaha guud ee agaasinka isbeddelka cimilada xafiiska ra'iisul wasaaraha Axmed Yuusuf Axmed ayaa la hadlay warbaahinta. teenan waxa laga yaabaa ninka gurigiisa gabarkiisa gurigeeda ka soo baxday shirkaana la yimi yes mas'uuliyad baan gudanaynaa inaynu isbarno environment-ga iyo waxaas laakiin qof saaka qashin meel ka qaaday ma jira qof saakay contribute gareeyay ceel loqoday ma jira qof wasaarad maanta wax ku darsaday ma jira qof maanta 100 geed meeshiisa ku soo beeray ma jira qof maanta dadka reer baadiyaha ay dhibaataysan wax ugu deeqay ma jira maya Soomaa inagoo dhan soo marka we are very happy laakiin haddana mushkilo kale baan haysta haddaan u soo noqdo markay heshiisyada adduunka ee Soomaaliya ay qaybta ka tahay way badan yihiin almost halkaan ay ku wada yaalaan waxaa ka mid ah heshiiska caalamiga ee mamnuucaya ka ganacsiga noocyada noolaha dhirta iyo duurjoogta ama CITES-ka waxa loo yaqaan CITES waa magaalo laakiin magaalada markii heshiiska lagu gaarayay baa marka loogu magac daray marka heshiiskan waa muhiim oo Soomaaliya qayb ay ka tahay waxa ka mid ah heshiiska ilaalinta xayawaanaadka ama duurjoogta asagana sidoo kale Soomaaliya qayb ayay ka tahay waxa ka mid ah heshiis goboleedka ilaalinta badda cas iyo deegaanka wadamadan badda cas sheergareeya Soomaaliya badda cas qayb ka tahay na waxa jira heshiis badda iyo arrimaheeda maaragtay sheeg looga doodo waxa kale oo jira heshiis goboleedka iskaashiga ee lagu la tacaalayo ama looga hortagayo wasakhaynta shidaalka batroolka iyo walxaha halista sidoo kale maaragtay sheeg asagana waa muhiim waxa kale oo jira heshiiska qaramada midoobay ee sharciga badda waxa kale oo jira heshiiska qaramada midoobay ee la dagaalanka nabad guurka I think kuwana si fiican u garanaysaan United Nations Convention for desertification ama land degradation heshiiska adduunku ku midaysan yahay loogu talagalay in wax looga qabto deegaanka baaba'aya waxaan dhirta la jarayo magaaleynta maaragtay aan loo baahnayn oo meelihii quruxda badnaa ama meelihii xooluhu daaqi jireen magaaleynta laga samaynayo dhibaatooyinka ka dhasha masiibooyinka dabiiciga ah ayaa sababa isbeddelka cimilada isla markaasina Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ay saameynta ku yeesheen maadaama oo muddo ka badan 30 sano ay ku jireen dagaalo sokeeye. Maxamed Jawhar, Jubaland TV, Muqdisho.